بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله maanta waxaan samayn doonaa application-ka halka ku arkaysiin ee WhatsApp u eg marka ugu horeyso waxaad furaysiin Sketchware baro ayaad furaysaa kadibna sidii aynu horey u samayn jirnay waxa aad buuxinaysaa application-ka detailskiisa ama magaciisa sawirka halka hore soo saaran iyo soo kale haddii aad rabtid kalaraanta markaa sawirkan oo soo saaranaysaa kalaraanta oo san wada hagaajin kartaa markaa application-ka aan rabo inaad sameyso ugu ekaado ka samayn doonto waa inaad raacdaa kalaraantan aan doortay intaa ka bacdi create app taabanaysaa kadibna application-ku furaya marka ugu horeyso marka waxa soo dhex dhigaysaa tablet halka taal kadibna iyadana waad hagaajin waxa ka bedelaysaa background-ka aan u doortay doorita application-kayga kaagu iska ekaanayaan haddii kalena kalarka doonta dooran kartaa sidoo kale view picture wax la dhahdo baahana xagga hoose yaal isna soo dhex dhigaysaa waxaa bedelaysaa baadhinkiisa ama hareerihiisa zero ka dhigaysaa kadibna waxaa ku dhufanaysaa xagga yar hoose waxaa kusoo daraysaa 3 page ka hore waxaa bixinaysaa page 1 fragment waa inuu noqdaa status iyo toolbar-kuna waa inuu muuqan page 2 isna saasoo kale magaca doonto bixi balse status-kii toolbar-ku waa inuu muuqan fragmentina wana ka dhigtaa haddii ay status-kii toolbar-ku ay muuqdaanna dhib ma laha balse waxaa waajib ah oo qasab kugu ah inaad fragment ka dhigto inta ka bacdi waxaan tagaynaa on create ama marka saa loo sameeyo application-ka waxaa soo qaadanaysaa qaybta view-da tagaysaa waxaana set up with view picture tablet-kii xagga sare aynu soo dhignay iyo view picture-ka ayaad xiriirka dhexaysiinaysaa intaa ka bacdina waxaad ka dhigaysaa tablet-ka 3 page ka dhigaysaa shaashada idinka muuqata kadibna kalaraanta ayaad dooranaysaa kalarka uu noqonayo qoraalka tablet-ka iyo kalarka uu noqonayo marka la doorto akhtar buu noqonayaa laakiin kalarka caadiga xuruufta tablet-ka ku qoran oo midabka cagaarka ujeedin cagaarka aan ahayn balse cadaanka yara xiga kadibna waxaad dooranaysaa leadka yara hoose kalarkiisa leadka yara hoose akhtarka isna akhtar baad ka dhigaysaa kalarkiisa waxaa soo kale dooranaysaa leadka yara xagga hoose height-kiisa ama dhererkiisa anigu 7 ayaan ka dhigay balse waa ka badin kartaa waana ka yareyn kartaa component-ka imaanaysaa waxaa kusoo darsanaysaa fragment adapter component-ga la yiraahdo magaca doonto u bixi anigu waxaan ku qoray fragment kadibna add ayaan taabtay waxaad tagaysaa qaybta components-ka fragment-iga labada mid kaga soo daraysaa kadibna waxaa kusoo daraysaa 3 if 3 if waxay ka micno yihiin positionada uu noqonayo marka la doorto tablet-ka ama dhanka loo riixo marka waxaanaysaa positionada kooda dhigaysaa kadibna waxaanaysaa haddii position-ku yahay ever takalena waxaa ku qoran haddii position-ku yahay 1 takalena waxaa ku qoran haddii position-ku yahay 2 kadibna kaba soo qaad position-ku waa 0 waa page 1 waa inuu tagaa marka wada dhigtid xagga return fragment marka soo qaadatid qaybta variables ka dhex taal hadduu position-ku 0 yahay page 1 hadduu 1 yahay page 2 hadduu 2 yahayna page 3 intaa ka bacdina waxaad save garaysanaysaa blockiskan maadaama waxaynu isticmaalnaa meel kale isticmaalnaa marka oo save garaynaysaa markaad save garayso waad kasoo baxaysaa waxaad sare fragment kadibna waxaa soo qaadanaysaa blockiska save garaystay
waxaa ka dhex saaraysaa blockiska buluuga in hore usoo isticmaalnay balse inta kaloo isticmaalna blockiska. marka waxaad tegaysaa qaybta ay ku qoran tahay operator, kadibna hoos ay u soconaysaa waxaa soo qaadaysaa add source directory, kadibna waxaa ku dhex qori qoraalka shaashada kaaga muuqda return chatis, yani pageka magaciisa weji pageka markaa u horeeya whatsappka chatis baa ku qoran markaa, laakiin magaca doontaada ku qoran kartaa. sideen whatsapp uga ekeysin unbaan chatis ugu qoray. pageka labaadoo kalena status ayaan ku qoray shaashadaydi ka muuqata. kow dambeeyana waxaa ku qori calls. haddii asaa ku qorto applicationkayga iyo kaaga soo ekaanayaan, sidoo kale waxaa u ekaanayaan whatsapp, balse tusaale ahaan baynu soo qaadanay whatsapp. applicationkaaga ayaad ku samayn kartaa san. waxaad tegi iminkana qaybta imageska, waxaad soo qabanaysaa 3 image ama 3 screenshot oo aan qaaday. screenshotka koowaad waa qaybta chatiskan kasoo qaaday whatsappka, kadibna aadna waad kasoo qaaday screenshotka ku dar screenshotka labaad waxaan kasoo qaaday qaybta callska, isna waa kusoo darsanaysaa magaca calls ama waxaad ku garatoon u bixi. waxaa inoo haray hal screenshotka saddexaadna waxaa weji qaybta statuska, kadibna whatsappkaaga dhex geli 3 screenshot oo soo qaadi. sidaan sameeyo oo kale ayaa samaynaysaa. kana waxaa u bixin status ama wasaan hore kugu sheegay, waxaad ku garatid magaca imageka, kadibna waad kasoo noqonaysaa. waxaad tegaysaa page 1, kadibna waxaa kusoo darsaa linearka heightkiisa ayaad waxaad ka dhigaysaa match parent ama waad fidinaysaa gebi ahaanba. paddingkiisa ama 0 isna ka dhigaysaa. intaa ka bacdina sawirkii chatiska ayaynu ka dhiganaa, waayo waa page 1. pageka koowaad whatsappkana waa chatis. page 2gana intii lag baa samaynaysaa linear soo dhex dhiga heightkiisa bedel, paddingkiisana 0, balse waxaa kaga duwan yahay backgroundka ama waxaad ka dhigaysaa qaybtii statuska oo page 2. pageka saddexaadna sidiisi lag linear match parent, halkaana eber ka dhig, balse waxaad ka dhigaysaa backgroundka calls. ugu dambeyn qaybta library taabo, app combat ka fur, kadibna applicationka run taabo. waxoogaa ka bacdi uu soo install gareynayo applicationku. marka uu saas ku soo install gareeyo, waxaad taabanaysaa halkaa ku qoran tahay open, hata install baad odhanaysaa. markuu installkaasi dhamaado open baad taabanaysaa, kadibna applicationku soo furaya. sidaad arkaysiinba waa applicationka weeg whatsapp, balse keliya waxaan waa screenshots. aad waxaa samaysuun intaa sare ee dhaqdhaqaaqaysa ama hareeraha u dhaqaaqaysa. waad mahadsantihiin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.